بسم الله الرحمن الرحيم سو دواده صاحب يال سو دواده sidii caadiga noo ahayd taxanaheeni 10kii barashada suuqa sarifka lacagaha qalad aan ku jirnaa caawan insha Allah waxa uu joognaa haduu Ilaahay yiraahdo qaybtii saddexaad barashada suuqan sarifka lacagaha qalad ee af Englishka loo yaqaano FX qaybtii koowaad waxaan ka soo sheekeynay taariikhda forex sidii ku timid waxa keenay in fursadaha forex ay banaanka timaado sida looga faa'iideystay iyo xaaladihii ay soo martay sidoo kaleeto ereyga u gooni ah ay forex ay leedahay oo u bixinay luqadda suuqa forex-ka si qofka uu u barto ereyadaasi kadibna uu ula jaan qaado suuqi marka waxaan sameynaynaa haduu Ilaahay yiraahdo habeenka ka dambeeso wuxuu daba socdaa qaybtii ugu dambeysay si casharada ay isku qabsadaan dadkana ay u fahmaan haduu Ilaahay yiraahdo caawa qaybteena saddexaad waxaan ku baran doonaa waxyaabaha hortiina ka muuqdo qaybta koowaad oo ah qaybihii labadii qaybood xalay aan ka soo sheekeynay support iyo resistance-ga oo aan rabno inaan sii xoojino iyo qaabka loo sameeyo sida qofka asagoo kaligiisa ah uu sameeyo in ayadana idin la wadaago haduu Ilaahay yiraahdo sidoo kale suuqa marka la joogo waxa jira wax la dhaho trend line oo ah aalad aad muhiim u ah suuqana qayb weyn ka qaadata si qofka uu sameeyo farsamadiisa gacantana waa inuu wax ka yaqaano trend line iyo sida loo sawiro iyo meelaha laga sameyn karo waxa sidoo kale aan ku noqon doonaa haduu Ilaahay yiraahdo fundamental analysis-ka sida loo sameeyo ay ka mid tahay in qofka uu helo website uu xogti ka daalan karo lacag walbo waxa ka soo baxa akhbaaraad ama news ka soo baxa sida caadiga ah marka website-yada fududeyn kara si qofka uu u booqan karo meelaha uu ka fiirin karo lacagtaasi news ka soo baxay taariikhda sida maanta oo kale labada bisha afraad oo kale markay tahay haddii aad maanta joogtid oo aragtid bari inaad suuqa ka tiragelisid oo ka ganacsatid waa inaad fiirisaa marka bari suuqa maxaa saameyn ku leh maxaa dhici doono lacagaha newska oo ka soo bixi doonana seen ku ogaan karaa insha Allah iyadana si toos ah waxaan u tagi doonaa website-yada laga ogaado haduu Ilaahay yiraahdo waxa kale oo asna aad muhiim u ah markii suuqa la joogo breakout wax la dhaho breakout-ka marka wuxuu daba socdaa badanaa uu la xiriiraa qaybaha supportiga iyo resistance-ga taasoo af Soomaali ahaan aan u bixinay iska caabinta ama meelaha suuqa laga taageero iyo sidoo kale waxaan iyadana aan caawa si fiican u dul istaagi doonaa waxa loo yaqaano candlestick iyo qaabka uu u sameysmo si aan u ogaano marka aad suuqa joogtid waxa arkaysaa wax la yiraahdo candle ama cagaar ha noqdo ama guduud ha noqdo laakiin sabab iyo qaab uu u sameysmaa jirto iyo meel uu ka soo sameysmay haddii aad aragtid candle-kaas suuqa aad ku aragtid waa inaad taqaanid oo aad fahmi kartaa haddii uu yahay candle-kaasi candle buy ah ama sell ama markuu bilaabanayo ku bilowdo buy ama sell iyo sidoo kale meelaha lagu xiro iyo meeshii uu ka furmay haduu Ilaahay yiraahdo asagana aan toos u tagi doono sidoo kale waxaa jirta ayadana saddex nooc oo af Englishka lagu dhahaa three types of forex charts saddex nooc oo suuqa loo aqriyaa jirto qayb waatan hadda aan ka sheekeynayno candlestick ah iyo laba qayb oo kale oo ayadana haduu Ilaahay yiraahdo aan gadaal dambe ku arki doono oo muhiim ay tahay qofka inuu fahmo haddii uu arko in ay tahay qayb kamid ah suuqan forex-ka qofkana uu ku analyze gareyn karo okay intaas aan rabnaa haduu Ilaahay yiraahdo caawa inaan dul istaagno wax badanna aan ka fahno haduu Ilaahay yiraahdana aan wixii su'aal ahna gadaal dambe iska weydiin doono okay qaybta koowaad marka support iyo resistance kelimada support waxay noqonaysaa meesha suuqa laga taageeray resistance-na waa meesha suuqa uu iska caabinta uu ka sameeyay sida caadiga ah markii dagaal lagu jiro ama laba koox ay dagaalamayso ama haddaan tusaale ahaan u soo qaadano kooxaha balooniga wuxuu u dhaxeeyaa laba koox walbana waxay difaacanaysaa goosheeda iyadoo markii weerarka dhinaceeda oo u soo batana isku dayaysa inay weerar celin ay samayso support iyo resistance-na marka sidaas oo kale tusaale ahaan uga soo qaado adoo ground jooga laba koox ama labada koox mid kamid ah u tartamayo u dheelaayo ama taageersanba haddii marka sida caadiga ah sida tusaalaha hadda sawirka inta ka muuqdo gacanteeda midig kor meeshan waxa ku qoran waa resistance oo suuqa meel uu iska caabin uu ka sameeyay iyo halkan oo ah ayadana support oo marka suuqa la jooga ah laba aad muhiim u ah oo waxyaabaha ugu badan qofka markuu cusub yahayna haddii uu fahmana uu lacag uu ka sameyn karo ay ka mid tahay tusaale marka suuqan wuxuu ka soo bilowday
hoostaan ka soo bilowday soo u soo socday wuxuu ku dhacay xariijintan loo yaqaan resistance-ga oo ah meel suuqi uu ka sameeyay iska caabin taasoo macnaheedu marka in loo ogolaan waayo suuqan inuu dhaafo qaybtan uu wuxuu kala kulmay difaac aad u adag okay kadib maxaa dhacay marka suuqi markii resistance-ga uu ku dhacay waxaa dhacday in uu soo noqdo oo haddana hoos oo ay ku qoran tahay support oo ah meesha suuqa laga taageeray taageeridaasoo macnaheeda ah meeshii hore ee laga soo celiyey meel kaleeto ka hooseyso oo suuqaasi uu dhaafi karin si uu kor ugu noqdo waxaa loo bixiyay marka support haddii marka suuqa inta uu ku dhacay ay noqoto resistance markuu hoos usoo daatana ay tahay support waxaan rabnaa marka inaan ogaano waxyaabihii xalay aan kasoo sheekeynay ka mid ah mar walba suuqa wuxuu u dhexeeyaa laba jiha midkood waa inuu suuqa ama kor uu yahay oo suuq kor u socdo ama uu yahay suuq hoos u socdo oo aan kasoo sheekeynay xalay labada suuqba in loo yaqaano buy iyo sell oo af Soomaali ahna marka af Soomaali laga dhigana ah iska iibi ama soo iibso okay suuqa markaa tusaale ahaan inta waxaan soo qaatay candlestick oo dhanka bidix haddii aad u jeedid ka muuqdo aan gadaal u noqdo qaybtan dhanka bidix sawirkan yaalo waa candlestickii suuqa lagu aqrinayay ama lacagta wakiilka ka ah lacagta xaaladda markaas ay ku sugan tahay ku sheegayay tusaale ahaan haddii aad ka ganacsatay lacagta euro iyo USD oo kale waxaa kaaga wakiil ah shumacyadan hortaada ka muuqdo oo loo yaqaano candlestick okay hoostan marka si fiican aad u fiirsid waxaad arkaysaa xariijin support ah oo macnaheedu uu yahay suuqan haddii uu kor ka yimaado ee xariijintan uu soo gaaro waxaan ku sii xisaabtamaa in ay tahay xariijin area muhiim ah suuqeena laga taageeray isla markaasna aan filan karo in suuqa uu dhaafi karin areadan laakiin waxaa jirto marmar uu suuqa jabsado sida hadda aan kasoo sheekeynay breakout oo ayadana uu tagi doono hadduu ilaah yiraahdo marka inta ugu badan suuqa waxaa la sameeyaa marka areadan uu joogo waxay u badan tahay in suuqaasi areadaasi laga celin doono oo uu kor aadi doono si marka ugu tashatid u ogaatid lacagtaasi haddii ay kor aadi doonto ama ay jabsan doonto waxaa la sameeyaa badanaa 1 ilaa 2 kandal ugu badnaana dad qaar ay dhahaan ilaa 3 kandal oo xaqiijin ah la sugaa sida hadda inta ka muuqato qaybtan hoose shumacan guduudka ah waxaa ka dambeeya 2 shumac iyo shumac saddexaad oo ah xaqiijin in suuqaasi isbedel dhinaca kor ah uu sameynayo kadibna suuqa waxa uu aaday kor okay isla markii waxaa dhacday marka in suuqii soo noqdo oo meeshii laga celiyay uu mar labaad ku soo noqdo haddana isla sidoo kale waxa uu aaday suuqaasi kor taas macnaheeda marka waxa aan ku tashanaynaa oo aan qorshaheena ku darsanaynaa waxay tahay suuqan supportiga iyo resistance-ga in ay yihiin laba shay oo aad u muhiimsan qofkana uu haddii uu fahmo uu ka samayn karo lacag okay labadan tusaale marka inta ugu gudbo supportiga resistance-ga waxaa dhinacan kale hoos u yaala sawir kaleeto oo asagana nooc ka mid ah saddexdii haddii aan kasoo sheekeynay 3 types forex chart qaabka loo aqriyo saddexda nooc uu ka mid yahay kan hadda dhinaca bidixda kaaga muuqdo waa candlestick kanna waxaa la dhahaa line chart oo asagana hadduu ilaah yiraahdo gadaal aan ka qaadan doono waxba kama duwana waa isla sidii kan aan kasoo hadalnay oo kale marka uu yahay qaabkan xariijinta ah qofka wax kan dhala aysan u muuqanin sidoo kale wuxuu samaysanaa suuqa area ayadana sidoo kaleeto ah support iyo sidoo kaleeto resistance marka meelaha falaaraha cagaarta iyo guduudka ay ka muuqato waa tilmaam lagu siinayo in aad fahamtid areadan suuqa hadda uu taagan yahay ama uu kusoo wajahan yahay uu kusoo socdo in ay tahay area muhiim ah qorshahaagana loo baahan yahay in aad ku darsatid haddii suuqa uu areadan soo gaaro in boqolkiiba ilaa intaas percentage uu suuqaani noqon doono okay taasi waa marka supportigii iyo resistancegii oo aan rajeynayo in aad wax badan ka fahanteen waxaa noogu xiga marka trend line oo asna sidoo kaleeta ah suuqa markii la joogo qodob aad iyo aad muhiim ugu ah trend line-ka marka dhinaca kale loo dhigo waxay noqon kartaa isla supportigii iyo resistancegii aan hadda kasoo sheekeynay taasoo micnaheeda ah waxaan soo aragnay laba xariijin oo ishoos yaala oo midna aan u bixinay resistance midna support ah
trend line marka waxba kama duwan aan ka ahayn in xariijintii jiiftay kor loo wareejiyo oo la qaloociyo taasoo suuqana ka dhigi karta aan ku ogaan kartid suuqa jiha ahaan jihada suuqa uu u socdo jiha kor ah oo buy ah oo la gadanayo miya mise waa jiha hoos u socota oo sell ah oo la iska iibinayo tusaale marka laba sawir noo yaala meeshan sawirka koowaad si aan u fahno horta trend line waxa uu sameeyo iyo qaabka loo samaysto waxaan u baahannahay inaan sawirkan tusaale aan ka qaadano anagoo fiirinayno tusaale ahaan qaybtan hadda uu ka furmay raalliga ahaada qaybtan hadda uu ka furmay tusaale ahaan haddii aan ku noqdo marka waatada haddaan joognaa marka meeshaan calaamadda xariijinta buluuga ah ee ku taalo marka uu yahay trend line noocan u samaysan ee ku tusaya in suuqa jihadiisa ay tahay suuq u jeeda jihada kor macnaheeda suuqan forexka waxaa loo yaqaanaa in suuqaasi uu yahay uptrend oo ah suuq kor u jihaysan ama kor u socdo isla sidoo kaleeto qaybta ku xigto ee ah suuq la iska iibinayo waxaa arki kartaa in hoos shumacyada ka muuqda ay yihiin shumacyo suuqii la iska iibinayo oo ay ku qoran tahay horteeda downtrend taasoo ah in suuqan la iska iibinayo okay trend line marka la joogo marka saddex xariijin ama saddex shay waa muhiim in aad ku xisaabtantid xariijinta la sawiranayo ee trend line si aad u sawiratid waa in marka hore aad ka soo bilowdid shumaca meeshiisa ugu sareyso waa in xariijinta saartid kadib markaad saartid waa in aad la heshta xariijin kaleeto oo ku aadan marka uu yahay trend line oo hoos u socda waa in ay ku taabataa ugu yaraan 2 ilaa 3 xariijin hadday 3 gaartana suuqaasi ay ka bannaan tahay fursad ah in sell uu aadayo suuqaasi sidoo kaleeto haddii suuq buy uu yahayna waa in aad u saarataa qaabka hadda aan ka soo sheekeynay oo ah 3 xariijin oo candle stick meesha uu ku dhamaada ah in aad ka bilowdid aad u wadid qaybta kor kadibna ay ku taabato 3 candle iyo wixii ka badan haddii ay marka areadaasi xariijisatay tusaale ahaan uu soo gaaro shumci suuqa ama buy ama sell labada jaamidkeed noqotaba waxaa boqolkiiba 85 ilaa 75 aan xaqiijisanaynaa in suuqaasi uu joogo area muhiim ah ee u badan tahayna in laga celiyo suuqa okay tusaale ahaan markaan fiirino marka wixii haddaan kasoo sheekeynayna uptrendigan ku sawiran inta shumacyadii sidii aan u rabay u haystaa waa kaas u jeedin sawirka hortiina ka muuqdo waxaan rabaa markii aan ogaado suuqan markii uu inta ka kaco ee uu buy aado haddii uu soo noqdo waxaa sidoo kaleeto iyadana macquul ah in uu mar labaad buy aado okay wuu soo wareegay haddana mar dambe uu taabtay meeshii waxaa dhacday in uu sidoo kaleeto uu haddana buy kaleeto uu sameeyo okay taas waxaa loo yaqaanaa marka suuqan la joogo trend line-gana waxaa jiro marka noocyada 3 nooc uu kala baxo nooca koowaad waa uptrend oo ah loo yaqaano higher lows oo ah suuq kor u socda ee ka bilaabanaya hoos ee u socda kor uptrend marka loo fiiriyo okay downtrend oo asin loo yaqaan sidoo kaleeto lower high oo ah suuq u socda jiha hoose korna kasoo bilaabanaya hoos u socdo asagana sidoo kaleeto waxaa loo yaqaanaa downtrend iyo waxaa jira sidoo kale marka sideways trends oo ayagana la yiraahdo ranging oo ah micnaheeda suuqii korna ma jiro hoosna ma jiro qayb dhexe oo wuxuu ku jiraa jiha isla siman okay tusaale hadda inta ka soo qaadana marka sawirkan gacanta bidix ka muuqdo inta waxaan ka soo sheekeynay qaybta inay tahay uptrend qaybta labaad ay tahay downtrend waxaa sidoo kale saddexaad noo jooga suuq ah sideways trend oo loo yaqaano suuq ranging ama marxalad isla siman ku jiro kor hoos iyo hoos ah
saddexdan marka suuq walba ee forex ah oo laga ganacsado saddexdan jiha ka mid ah ayuu mar walba iyo saacad walba uu ku sugan yahay. Okay, si aan u faahno marka jihada koowaad oo ah suuq hoos ka yimid oo kor u socda oo ah suuq la gadanayo ama loo yaqaano marka la joogo forex-ka buy, iyo suuq kor ka yimid ee u socda dhanka hoose ee loo yaqaano asna sell oo ah downtrend, iyo sidoo kaleeto suuq isla siman oo jiha marna kor marna hoos ah, laakiin marka aan xariiqin samaysto labada dhinacba sida hadda sawirkan inta ka muuqdo aan waxba iska bedelin ee mar walba uu kusoo noqnoqonaya isla meeshii, asna waxaa loo yaqaanaa sideways trend oo ah suuq ranging ku jiro ama jiha isla siman. Okay, trend line marka isla sawirkii oo kaleeta inta soo saaray qoraalkan hortiina ka muuqdan waa ujeedin suuqan waa suuq uptrend ah ee suuq kor u socdo. maxaa dhacda marka suuqa waxaa laga keenay kor wuxuu u soo socdaa hoos markii uu yimid ee uu ku dhacay xariijinteenii uptrendiga ahayd waxaa dhacday in kor loo celiyo. isla sidoo kaleeto mar labaad uu kusoo noqday xariijinteenii, isla sidii oo kale waxaa dhacday in dib loo celiyo suuqii uu kusoo noqday, sidoo kaleeto waxaa loo celiyay dib. marka qofka fahma trend line sida loo sameeyo ee saxda ah, haddii suuqan fursadii ugu horeysay koowaad ee inta markii uu kusoo dhacayay aan ka mashquulay ama ee idhaaftay ama sabab kaleetaba ee ku dhacday, waxaa ii furan fursadda labaad ee ah suuqa markii uu yimaado mar labaad jihadii uu kusoo noqdo meeshii uu taabsaday in aan suuqan u raaco buy anigoo ka faa'iidayo waxa loo yaqaano pips. Okay, trend line-kan waa sidoo kaleeto qayb ka mid ah supportigii iyo resistancegii oo marna kor loo jeediyey marna jiha kaleeto oo loo jeediyey hoos u socota ah. Okay, intaas haddaa fahantay marka trend line waxaan rajeynayaa in macluumaad yar ama normal ah ka fahanteen wax ka qaadateen. hadduu ilaahay yaraado waa soconaynaa qaybteena ku xigto saddexaad haddii aan fiirino marka maxaa noo yaalo. Okay, good. Okay, qaybta saddexaad marka waa fundamental analysis-ka sida loo sameeyo oo ayadana ah mawduuc aad muhiim u ah. xalay waxaan kasoo sheekeynay in ay jirto fundamental analysis iyo sidoo kaleetoba technical analysis oo ah fundamental analysis marka la joogo in suuqan aa u taxliilisid qaab warawareyn ah ama aa heshid xog kugu filan iyo macluumaad. sidee ku heli kartaa waddan walba oo caalamka ah ee leh lacag ku jira xubinna ka ah suuqan forex-ka waxaa jira waxyaabo badan oo saameyn kara oo waddankaasi ka soo baxa dhanka siyaasadda, haddii waddankaas doorasho ay ka jirto, haddii bangiga dhexe waddankaasi laga leeyahay ribadii dulsaarka ahayd uu ku daro ama wax uu ka dhimo, ama GDP-ga waddankaas oo hoos u dhaco ama kor u kaco. sidoo kaleeto warbixino kale waxaa jira ayagana kasoo baxa waddan walba oo loo yaqaano kuwo bilo ah bishii lasoo dhaafo waddankaas xaaladii uu ku sugnaay, inta qof ay shaqaysay, inta qof ay shaqa la'aanta ah yaa badnaay oo ah iyagana percentage lagu qiimeeyo lacagta markaas lagu trade gareynayo. haddii waddankaasi percentage shaqa la'aanta uu badan yahay macnaheedu waxay tahay in ay haysato dhaqaale xumo oo la rabo inaad qorshahaada ku dirsatid in waddankaasi xaaladiisa dhaqaale aysan fadhinin, lacagtiisa haddii aad ku trade gareynaysidna aad ka digtoonaatid. Okay, qaybtaas waxaa loo yaqaanaa marka fundamental analysis. Okay, si aad u samaysid marka fundamental analysis maxaa u baahan tahay? intee marka indho ka dhigan kartaa xogtii aa u baahneedna aad ka heli kartaa? waxaan sameynaynaa marka oo muhiim ah oo anagana badanaa aan isticmaalnaa waa laba website oo loo yaqaano midka koowaad forexfactory.com iyo sidoo kaleeto investing.com oo ah laba website xogta ugu badan ee waddan walba oo suuqan forex-ka ku jira loogu heli karo xogtiisa guud iyo mid gaar ahaaneed iyo macluumaadka kasoo bixi kara bil, sanad ama maalmo sidoo kaleetaba. Okay, marka si qofkii uu helo waxaan sameynaynaa insha Allah hadduu ilaahay yiraahdo qaybta marka aan taagannahay dib ayaan u noqon doonaa oo waxaan tegi doonaa insha Allah website-kii si aan toos ugu fiirino sida loo ogaan karo xogtii iyo sidii aan website-kaas uga noqon lahayn xubin ka tirsan ama akoon ku leh. Okay, waxaan tegaynaa marka hadda website-ka ugu horeeyo oo aan dhahnay Forex Factory. waa kana intuu igu degsan yahay shaashadina arkaysiina rajeynaa idiin muuqato.
waa kana marka tusaale marka kan waa mid hadda aniga aan ku leeyahay ee ii furan haddii marka aan xiro kan hadda ii furan website-ka marka aan soo galo sidiisa caadiga ah wuxuu kusoo muuqan doonaa sidan waxaan u baahanahay marka in aan ka noqdo xubin aan iska diiwaan geliyo si aan u helo xogtii maalintaasi ama xogta isbuucyada soo socda ee lacagaha ku saabsan website-ka markaa saan u timaadid qaybtan gacantaada midig waxaa ku qoran log in oo ah haddii aa akoon ku leedahay furo haddii aa cusub tahayna join oo ah lagu soo biir qofka cusub marka qaybtaas uu ku dhufanaa waxaa samaysanaysaa username oo ah sida tusaale ahaan lacag password ayaa u samaysanaysaa 1234 wuxuu doona ha noqdo isla passwordkii ayaa ku celinaysaa qaybtan passwordka markaa ku celisay marka emailkan waa email muhiim ah la rabo qofka in uu ku xisaabtamo in emailkaas uu yahay email shaqeynayo sababtoo ah waxay kugu soo dirayaan linkigaas oo la rabo in aad soo active garaysid okay kadib markaa shuruudaha martid akoonkii aad ka samaysatid linkigii lagu soo dirayna aad soo active garaysid marka waxaa imaanaysaa qaybtan ay ku qoran tahay login aniga hadda waa igu diyaarsan yahay emailkayga iyo passwordka waxaan leeyahay marka gudaha ii gudbe okay gudihii markaan soo galo sidaan uu igu soo muuqdaa si aan u helo marka macluumaadka xogtii lacagta waa inaan taga qaybtan gacanta bidix kor ee ku sawiran yahay guriga taasoo loo yaqaano home okay markaan saan u imaado marka website-ka maanta taariikhda waa 2 April waa maalin khamiis ah maxaa marka ka cusub suuqa maxaa ka cusub lacagta aad ka trade garaysid ama suuqan aad ugu jirto oo ugu ganacsatid maxaa xog oo maanta ka yaala tusaale ahaan marka lacagta dollarka maanta waxaa ka muuqda in uu ka yaalo news aad danger u ah ama guduudan haddii uu guduudan yahay meeshan newskaasi waa news suuqa saameyn ku yeelan karo okay marka haddii guduudka anaa ka dhigtay laakiin sidoo kale waxaa jira qofka markuu soo galaayo wuxuu kusoo muuqan doonaa sida hadda folderada hortiina ka muuqda 1 2 3 iyo 4 kadibna waxaa leeyahay apply filter waa sida caadiga markuu qofku cusub yahay oo soo galo oo soo muuqan doono waa sidan laakiin kalaradan kaleeta ee midna jaalaha ah midna oranjiga ah iyo midka caadiga bibiyaha ah waxba muhiim ah nooma aha anaga saameyn aad u weyn suuqa kuma laha laakiin waxa kaliya ugu muhiimsan waxay tahay waa folderkan guduudan ee kalarka ama guduudka ah si aan uga taxadirno waxaan u baahanahay marka inaan asaga kaligiisa doorano okay meeshaas aad tegaysaa saddexdan kaleeto waxaa ka qaadaysaa tigta saaran xariijintaas saarana ka qaadaysaa kanna waa ka qaadaysaa kadibna waxaa leedahay apply filter oo macnaheeda ah lacagta maalintaasi suuqa wax saameyn ah ama news suuqa saameyn kara uu ka soo bixi kara kaliya iisoo muuji iyadoo aan inta kaleeto lagaa qarin doono okay marka saan ay kuugu soo baxda marka waxaa u baahan tahay in aad ogaatid xogta USD ee lacagta dollarka Mareykanka ah maxaa ka soo baxay lacagta xaalad noocee ah ayay ku sugan tahay tusaale marka waxaa jiro qaybtan dhankaaga midig haddii aad soo aadid waxaa jiro 2 nooc oo loo yaqaano actual iyo forecast iyo sidoo kaleeto iyadana previews marka maxay kala yihiin saddexdan actual waa waxa hadda la filan doono ee lacagtaasi ka soo bixi doono tusaale haddii maanta 8 saac iyo bar ka hor aan soo geli lahay actualkan meesha kuma qorneen oo kaliya waxaa kuu muuqan lahay qiimihii bishii ugu dambeysay ay kusoo baxday lacagta dollarka Mareykanka iyo forecast oo ah saadaalin ay sameeyeen khibrada ku takhasustay barnaamijkan dhaqaalaha oo ay ku qiyaaseen ilaa iyo 36,000 inay noqon doonto kadibna waxaa dhacday qiimihii saxda markuu soo baxay waxay noqotay 66,648 taasoo ah qiimo hoose oo marka loo fiiriyo suuqan aad u hooseeya okay marka taasi waa xogtii lacagta ah waa inaa maalintaasna aad ka taxadirtaa lacagta aad ku trade garaynaysid newska ka soo baxay ma tahay news lagu trade garayn karo mise waa news saameyn yeelan kara haddii uu saameyn kugu yeesho taas macnaheeda adiga oo ay ku saxneed technical analysis-kaaga waxaa dhici karto in lacagtii aad ugu talagashay in aad wax ku faa'iidid ee adigiiba kaa dhunto okay tan website-kan waxaan rajeynayaa inaad wax badan ka fahanteen
wixii kaleetana insha allah hadduu ilaahay yidhaahdo marar badan aan ku noqon doonaa si aad mar walbaba qayb uga fahantaan sidoo kale marka qaybta labaad haddii aan tago websiteka labaad oo asna loo yaqaano investing.com oo hadda aniga aan xubinka ahay asagana sidaan kuugu soo muuqan doonaa websiteka labaad websitekan sidoo kale waa website asagana aad muhiim u ah kala sheekeeya dhaqaalaha iyo isbedelka lacagaha sidoo kaleetana dadka ka trade gareeya suuqyada kaleeto ee ka baxsan forexka ee loo yaqaano sida binary optionka iyo stock marketka laftirkooda waxay ka heli karaan xog ku filan oo markaasi tusaysa suuqyadaasi meesha ay u jeedaan jihada iyo lacagaha ama suuqaasi saamiga qofka uu ku leeyahay haddii ay tahay saami la iska iibinayo ama la iibsanayo uu ka heli karo xog ku filan anaga marka ka forex aan markaan nahay dadka ka ganacsada suuqan forexka uma baahnin stock marketka iyo waxyaabahan kaleeto kaliya marka waxaan tegaynaa qaybtaas kor ay ku qoran tahay marketka kadibna currencieska oo ah waxa anaga aan ka ganacsano ee loo yaqaano lacagaha kadib waxaad tegaysaa marka forex rateska lacag walba waatna marka sidaan ay kugu soo muuqanaysaa lacag walba markay saan kuugu soo baxdo tusaale haddii aan usoo qaadano euro USD markaan saas ugu dhufto waxaa ii soo baxaayo qayb dhan oo iswadata oo ka sheekeynaysa haddii aan u baahanahay in aan lacagtaasi fiiriyo newska ka soo baxaayo oo ay ku qoran tahay news analysis haddii aan rabo in technical ahaan aan u fiiriyo lacagtaasi intee jihaday u socotaa buy mise sell xaalad noocay ku sugan tahay saacadihii lasoo dhaafay xaaladeeda sidee ahayd labada meel ugu muhiimsan marka waa tanaa tusaale ahaan marka euro USD rabti inaad fiirisid meeshaan aad ku dhufanaysaa kadibna waxaa kuu soo bixi doona hadduu ilaahay yidhaahdo euro iyo USD newska suuqa maanta ka yaala iyo newsada wax saameyn kara ka Soomaali ahaan marka annaga haddii aan u baahannahay inaan luqadeena ka dhigano maadaama hadda af English uu ku qoran yahay waxaa samayn kartaa just one click ku dhufo kadib markaa ku dhufatid si xogtii aad u heshid waxaa samaynaysaa soo koobi gareey tusaale ahaan hadda intaanaan ku baroobeeyo iyadoo aan qoraalkaas kaleeta aan samaynin soo koobi gareyso kadibna waxaa tagtaa sida caadiga ah websiteka Google Translate-ka oo af Soomaali iyo af English ba ka heli kartid halkan best ku dhakeenso kadibna qoraalkii af Soomaali ayuu ku noqday uma baahnid in aad Englishka isku taxalujisid oo waxaa samayn kartaa halkan qoraal kortaada ku qor adoo akhrinayo labada lamaane ee euro USD waxay u sii gudbeen dhanka hoose inta lagu guda jiray nuska labaad ee kala fadhiga Mareykanka waxayna ku dhaceen hal isbuuc cusub mid hoose oo aatan qiimaha markaasi lacagta ee hadda ay mareysay ay taagneed dhamaadka warbixinta marka waa inta hordhaca hore hadda aniga soo koobiyey si wad akhriska oo aad ku dhufan kartid kadib marka xog kugu filan meeshaas ka heli kartaa taasna nooca newska ayadana loo aqriyo haddii kale waxaa samayn kartaa qaybtan kore ee newska inaa imaatid qaybtan ku dhufan kartaa marka intaasoo nooc baa u samayn kartaa insha allah hadduu ilaahay yidhaahdo laakiin inta ugu horeysa waxaan rabaa waxay tahay in aad fahantid keliya sida ugu horeysa ee qofka uu ku raadsan karo xogta lacagta uu rabo in uu ka ganacsado okay marka waxaan ku noqonaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo cashirkeennii qaybtii hadda aan joognay oo ahayd fundamental analysiska waa tanaa marka qaybteennii hore aan tagno fundamental analysiska oo aan sheegnay in labadan website ay muhiim ay yihiin iyadoo xitaa hal website uu kugu filan yahay oo ah forex factory adoo ka raadsan kara xogta lacagta haddii aad websitekaas ku darsatidna wuxuu sidoo kale kaa caawin karaa technical analysiska iyo lacagta xaaladda markaasi ay ku sugan tahay qaybta markaan u gudubno breakout iyo sidoo kaleeto pullback breakout af Soomaali ahaan haddii aan ka dhigo waxay noqonaysaa jabsasho inuu jabsado suuqaas iyo pullback oo ah iyadana micnaheeda soo noqosho oo dib u noqosho ah si marka wixii aan u fahanno waxaan sameeyey marka sawiradan hoos ka muuqdo waxay u taagan yihiin ama ay micno ahaan sheegayaan breakout-ka waxa uu yahay iyo sidoo kaleeto pullback waxa ay tahay iyo waxa ay qabtaan okay tusaalaha marka qaybta hoose markaa imaado suuqan sida hore ugu soo sheekeynay waa suuq ranging ahay kor iyo hoos kor iyo hoos kor iyo hoos aan waxba trend line samaysanin oo ah ama suuq kor u socda ama suuq hoos u socda kadib maxaa dhacday marka suuqi wuxuu sameeyey breakout meeshii uu ku noqnoqonayay uu jabsaday sida caadiga ahna suuqan
inta aan ku jirno marar badan waa la kulmi doontaa kelimadahan break out-ka pullback-ka iyo support iyo resistance-ga waxyaabaha ugu badan ee qofka kusoo noqnoqday ka mid tahay. Okay, waxaa dhacday markii suuqi inuu jabsaday xariijinteenii resistance-ga ahayd oo kor u aaday. Okay, kor markii uu aaday macnaheeda waxaan rabnay marka in uu meeshaani kusoo noqdo si uu u sameeyo wax loo yaqaano pullback oo ah dib u laabasho ama dib u gurasho inuu dib u soo noqdo ay ahayd. Ma dhicin marka wuxuu tagay xariijintaas kore ee guduudka ah. kadib xariijintii markuu ku dhacay waxaa noo samaysmay resistance cusub. Resistance-geeni horena wuxuu noqday support. kadibna waa laga soo celiyey suuqii oo sidoo kaleeto wuxuu samaystay pullback oo ah meesha intriga ee suuqa ka geli kartid. Okay, muhiimadda markaa u socono marka hadda waxay tahay in aan fahanno okay, si marka aan u fahanno pullback-deena suuqa marka maxaa pullback maxaase break out okay, labadan xariijin dhexdooda ee suuqa range-ka ku jiray ama kor iyo hoos u dhaxeeyay marka uu soo jabsado meeshaas uu jabsado waxaa loo yaqaanaa break out. Okay, marka uu jabsaday ee suuqaasi kor uu aaday haddii jabsashadii meeshan uu jabsaday uu ku soo noqon lahaa isla xariijintii waxaa dhici lahayd sidoo kaleeto ayadana pullback oo ah macnaheeda suuqii inuu dib u soo noqday. tusaale ka fudud marka jabsashadii waa fahnay suuqan hadda inta yaala wuxuu sameeyey inuu suuqii jabsado oo ah break out inuu sameeyo. isla markii break out-ka uu sameeyey suuqii wuu soo noqday meeshii uu jabsaday ku soo noqday taasna waxaa loo yaqaanaa pullback oo ah dadka suuqan sida fiican u yaqaana waxay sameeyaan markaan oo kaleeto suuq buy ah in ay fursad meeshan ka banaan tahay qofkana uu qalabkiisa sii diyaarsado si uu u bilaabo dagaalkii uu ku raadin lahaa bibska kaasoo ah mid inta ka bilaabanaya. isla sidoo kale suuqan suuq up trade ama buy oo kor u socdo suuq hoos aadayna muxuu sameeyaa marka suuqan isagoo range ku jira markii intaan u dhaxeeyay wuxuu sameeyay inuu jabsado meeshii break out u dhaco. break out-kii markuu dhacay isla sida tii hore aan kusoo aragnay suuqii meeshii uu jabsado kusoo laabtay kadibna waxaa dhacday in suuqan uu aaday hoos. marka muhiimadda waxaan rabnaa inaad fahantiin labadan kelimadood ee ah break out-ka iyo pullback-ga oo loo yaqaano mar inuu suuqii soo jabsado oo uu hoos soo aado kadibna uu meeshii uu jabsado uu ku laabto kadibna uu sameeyo pullback. intaas inaa ila fahanteen ayaan rajeynayaa. aan ka gudubno qaybta candlestick-ga marka candlestick-ga qaab uu u samaysmaa jira suuqa marka la joogo. okay, haddii marka aan ka soo qaadano candlekan hortiina ka muuqda tusaale ahaan candlekan hortiina ka muuqda xilligan waa xilligii hore intaanan candlada loo sameynin wax kalar ah cagaar iyo guduudna xilligaasi ma jiri jirin oo waa markii uu suuqan uu bilowga u ahay. tusaale ahaan marka si aan iskula fahanno waxaan ugu talagalay inaan idin soo qaado